السلام عليكم أصحابتا خير بدن بيدي رجانيا دمانتينبا كسو دوادا فاتوما ريزيليانس مر لباد iyo mar saddexaad khayr badanna waa idin rajaynaya meel kastoo joogtaan cidii jecel maanta waxaan rabay inaan ka yara hadlo muxuuha mawduuca daawacada qarsoon ee dumarka gaar ahaan dumarka way jiraan rag iyaguba qarsada dhibaatooyinkooga ama daawacada soo gaaraya ee maskaxdooda adduunyada waxa ugu daran yacni daawaca ka soo gaara jirka dushiisa wala daweyn karaa laakiin ka soo gaara gudaha emotionalkaaga ama maskaxdaada wallahi yacni daaweynteedu qofku waxa ku qaadataa sanado weligeed waa la wadayaa daawadaas bulshada Soomaaliyeedna iskama ilaaliyaan daawacyada qarsoon ay qofka u geysanayaan dhibaatooyinka qofka u geysanayaan والله يعني wax easy oo arkaan ama wax fudud oo lagu dheeldheeli karo lagu ciyaari karo daawaca qofka soo gaarsiinayaan shucuurtiisa iyo maskaxdiisa ya ciida wax leeg ah marka muxuuha maanta kaas rabaa inaan ka hadlo fadlan dhagihiinay amaahiya idinkoo raali waxaan ka hadlayaa marka maanta waxaan arkayay gabadh la wadwado idii odagayga maraba ma jeclin aan ka hadlo waxa anigu laakiin waa idib daro Soomaalida aad buu akhlaaqad daran yihiin aad buu idib daran yihiin mid kale dumarkooga fadeexada yani waxaas qofku ku dhacay way u sii faafiyaan ay u wadwadaan ay meel walba u gaarsiiyaan yani waa waxyaabaha iga yaabiyay damiir daradooda yani shucuur male in naxariis male idib male akhlaaq ma jirto si alle iyo si loo qaado dhinac loo qaado dadkan anu ma aqaano wallahi billaah waan ka dhashay dhiigooga ugu jira oo ku dhex koray mana jecliinaan caayo ama aan wax ka sheego laakiin markaan arko idib daradan iyo waxyaabahan la wadwado wallahi waan ka xanaaqaa daawacada soo geysanaysiin ama aad gaarsiinaysiin gabdhihiin dad ogtihiin ciyaar iyo kaftan iyo kama dhigateen reaction kama raadiseen iyo lacag waa halka ugu dambeysay liidasho weyn sharaf xumo adduunka kale lama arag yani nin soo caayaya ama reaction ka soo qaadanay dib qof ku dhacdo kale Soomaalida mooyaane yani waxyaabaha iga yaabi wallahi billaah waan idin la yaabaa anigu run hadda idin sheego waan yaqsoodaa waan ka diiqadoodaa ma arki karo ii sheeg muxuuha waxyaabahan aad ciyaarta ka dhiganaysiin ama kaftankaad ka dhiganaysaan marka daawacyada aad u geysanaysiin maxay gabdhihiina ogaada inuu idinkana idin sugayo oo maalin un la idinka jarayo qof kasta oo ku qosqosla ku ishaga ku farxa in lacag ka raadiya maalin un bay ku sugaysaa taasoo kale ama aad kugu dhici ama walaasha ama hooyada ama familigiina qof uu dumar ah idib daradan inaad joojisiin idinka idin qurux badan tahay Soomaaliyeey يا يعني والله والله يا ابا waxaan iri bisinka qofka wixii ku dhacay waxa ka sii daran warwareejinta la warwareejinayo daawaca qofka aad soo geysanaysiin weliga la noolaanaya ka daran oo soo dhaafteen dumarkii la soo kufsanay ee caadiga ahaa wad soo dhaafteen ma dumarkii la sheegay dameerka laga dhiganay la garaacay waa soo dhaafteen waxaad socotiin imikana inaad ceebaha gabdhaha ad si falaqaysan ka dhigtaan wax caadi ah normal ah oo sidan isku soo dhaamaa wallahi billahi wa idib dar halkii ugu dambeysay ya buugayga waxaan ku qoray hidden wound yani waxyaabahan ka hadlayo unba wali la sii wada dadkan ay sii wadaan doqonimadooda wallahi dhinac la idin qaadan ma garan karo ilaahay idin soo hadeeyay baan idin leeyahay ya baddiinana ilaahayna ma soo geliyo dad waxa tihiin dameerkii ka dhintay naxariistii ka dhamaatay doqoniimo ugu biirtay nimankaaba igu daranba ka soo hadlaya naagihii intay dhaaftay nin weeyaanba idib dara halkii ugu dambeysay ay akhlaaqad xumo ay marayaan marka wallahi nin walba ilaahay baa xisaabinaya dunyadan qof kasta wax kasta oo samaysay way ku qoran tahay meel la isku xisaabinaya jirta oo la isku xisaabin doono
oo la iswada xaadirin doono kana ciyaar ka dhigta kaftan ka dhigta dumarka ceebahooga iyo maxay hadaana waxyaabaha ku dhacaya iyagiiba ay la rafaadsan yihiin marka intaas ay idin sheegayay maca salaam